warfidiyeenada loo qabtay tababarka ayaa ka mid ah kuwa ka howlgala idaacadda iyo TV-ga qaranka Soomaaliland. Masiibooyinka dabiiciga ah ee lagu tababarayay warfidiyeenadani ka soo warrimidooda ayaa ah duufaanada, dhulgariirka, abaaraha, shilalka, dabka iyo waxyaabaha la halmaala. waxaana tababarkani oo hal maalin ah bixinayay Maxamuud Xasan oo ah khabiir saxaafadeed oo ka howlgala wargeysa ka soo baxa dalka Finland, kuwaas oo kala ah Development Media Department, Combined of Finland Times iyo Global Development Magazine. wasiir ku-xigeenka warfaafinta iyo wacyigelinta Soomaaliland Guuleeda Cabdi Xasan oo furay tababarkani ayaa sheegay in ay tani ka mid tahay bilowga qorshayaasha sanadka cusub ee wasaaradda warfaafinta ee la doonayay in khibradda iyo aqoonta shaqaalaha kor loogu qaado. waana traininadii noocyadii ugu horeeyay ee ka qabsooma wasaaradda warfaafinta. waxa kale oo ay ka mid tahay dardargelinta shaqaalaha iyo shaqada ee wasaaradda sanadkan cusub. waxaan rajaynaynaa shaqaalaha weynaha wasaaradda warfaafintu inay qayb weyn nagala qaataan oo hawlaha ka faa'iideystaan oo sidii ay hawsha maanta inta ka qayb qaadatay in badan oo walaalahooduna chance helin baa jira ay walaalahood ugu gudbin lahaayeen iyaguna ay uga sii faa'iideyn lahaayeen. hawsha training-ka ah ay qaateenna sidii ugu dhaqsaha badan la ay u fulin lahaayeen, sidii implementation ay ugu bedeli lahaayeen. waxa kale oo maanta halkan mahad uga jeedinaynaa gaas iyo muxuu ahaa Maxamuud oo yarka ninka dhalinyarta ah ee nin Somalilander ah oo candidate of PhD ah oo maanta yiri markuu waxbaan soo bartay tababarkaygii ugu horeeyay ummadaydan horta ku celinaya. horta waa wax lagu farxo. agaasimaha guud ee warfaafinta iyo wacyigelinta Axmed Abubakar Maxamed iyo maarayaha guud ee telefishinka qaranka Soomaaliland Khadar Maxamed Cakulle ayaa kula dardaarmay howlwadeenada tababarkani qaadanayay in ay aqoonta ay ka faa'iidaan tababarkani ku dabaqaan howlahooda shaqo. labada saacadood halkan joogtaan intaas weerarsataan aad kala faa'iideysataan inaad u bedeshaan ficil oo markaad shaqada qabanaysaan ama warbixin soo ururinaysaan inaad markaa dabaqdaan. marka waxaan u baahanahay cilmiga iyo aqoonteena barano inaanu ka shaqeysino ficil bedelo. markaas markaa cilmi noqonaya oo markaa wax tar sameynaya. mid kale shaqaalaha kula dardaarmiyo waxa weeyaan iyo wariyaasha aqoontu maalin kasta isbedelaysaa. imikana waxa la joogaa ahdigii markaa ay ku tilmaamaan markaa information age-ka. marka aqoonta gurigaaga kugu iman kartaa, facility badan baad haysataa, imika internet baa jira. marka waxaan baahneen maalin kasta aqoontiina kor u qaadaan. Dr. Maxamuud oo runtii uga mahad celinayo in telefishinka qaranka iyo idaacadda radio Hargeysa ama warbaahinta qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ay nasiib u yeeshaan tababarkii ugu horeeyay ee noocana marka laga hadlayo personal emotional training ama qofku suxufiga ah inuu ka warbixin karo dib dab ama daad ama dabaylo ama duufaano ama abaaro masiibooyinka dabiiciga ah markay warbixintu halka gasho qofku sidoo kale reebaya in isaga laftigiisa uu ku milmo dadkii dhibtu haysatay ama dhibtu uu arkay oo dabadna ay ka lunto jihadii ama habkii uu soo gudbin lahaa waxa jira. waxaan uga mahadnaqayaa sidoo kale Maxamed Cabdilaahi Gaas oo aan u aqaano aasaasaha qaybta af Ingiriisiga Radio Hargeysa sida uu fursadii ama fariintii anigu markii hawshan la soo igmadayba aan martida uga noqday uu degdeg uga soo jawaabay. maamulaha Radio Hargeysa Maxamed Saciid Maxamed iyo Maxamed Cabdilaahi Gaas oo isaguna ah isku xidhaha macalinka tababarka bixinayay iyo mas'uuliyiinta wasaaradda warfaafinta ayaa sheegay in tababarada noocan ah ay yihiin qaar loo baahan yahay oo ka qayb qaadanaya kor u qaadida xirfadaha warfidiyeenada warbaahinta qaranka.